Horumarka TV. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal gebi ahaantiinba meel walbo daclada adduunkaad naga daawanaysaan halkani waa horumarka t v xaruntiisa labaad uu ku leeyahay waddanka Holland maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij khaas ah oo ka soo qayb galay mudane Axmed Xuseen oo ah wasiirka socdaalka dalka Canada ahna Soomaali Kanadiyan halkaasina waxa uu ka soo jeediyay khudbad ku aadan xafladaasi waxa uu yiri كان كقبله حدودك وحي لحالن كنا أصل حلنا وزيرك أو أنا يجوا باكسن أو immigration كمرين كهايستو لبجر بأوتو يوسوا باقي وحول بأو سؤال والبا أن ويدي أما أرين والبا أو كنيا كنا عوض كونسون كقبين أن أوبن دقي وسنكسو شوية من مجد مركب حاو أركنين معركتي نين فهمتي أقول إن wax maqlo concernkeena qaato oo lala shaqeyn karo markii intii uu jagada helin buuna xataa wuxuu yiri oo uu maray maaragtay confirmation ka sanadka wuxuu yiri xuduudka Canada iyo Mareykanka ka dhaxeeyo waa xuduud aad muhiim noogu ah xagga dhaqaalaha shaqadeedana waxa wuxuu yiri in xuduudkaas fududeeyo si la isku gudbi lahaa concernka ugu weyn aan qabano waxa wuxuu yiri xuduudka oo Mexico iyo Mareykanka ma ah xuduudka Canada. So I was just explaining C6, why I'm really proud of the fact that Bill C6 has become law a few weeks ago. Bill C6 was a central campaign promise that we made to eliminate the barriers and obstacles that the previous government made and put on the path to citizenship for permanent residents. They lengthened the time that you had to wait to become citizen from 3 years to 4 years. Even those 4 years, it was almost impossible to accumulate because they said that you had to be in Canada a consecutive number of days for each year. So even if you had 4 years out of 6, if you stayed for 182 days for 1 year versus 183 days, you couldn't apply for citizenship. They brought in something really dangerous, which is two-tier citizenship, second-class citizenship, where you and I could commit the same crime, but you don't lose your citizenship, but I do because I was born abroad. We found that to be unacceptable. We thought that it was against the Constitution. It's against how Canadian society has evolved. It was a backward thinking, and we said if we get into power, we'll eliminate that. And it took a while, but finally C6 has passed. The other thing that C6 does is it allows children who are estranged from their parents, who are in state care or for other reasons are separated from their parents, to be able to apply for citizenship as of right. And finally, what the Conservatives had done is they had lengthened the age range for language and citizenship requirements. It used to be 18 to 54. If you're 18 years to 54 years age, you had to write the citizenship exam. What the Conservatives did is they made it 14 to 64. Now, the citizenship test is not easy. A 14-year-old cannot pass the citizenship test. It creates barriers. So, and same thing with a 64-year-old or older. So we've brought it back to 18 to 54, which has worked fine. And we're making sure that permanent residents are given. The other thing that C6 does is if you spend any time in Canada before becoming a permanent resident, in the past, that time would disappear and you will never get credit for it. So you would have to start the clock again and wait for 3 years and then apply. So under Bill C6, any time you spend in Canada before you become PR will count towards your citizenship residency requirements. Because we understand that for international students, foreign workers, form an attachment to this country before they become PR. So we want to acknowledge that by giving them time credit. All these things will facilitate people becoming citizens and remove the barriers. But the biggest one is changing this double standard for citizens. A Canadian citizen is a Canadian citizen whether they were born abroad or whether they were born in Canada. Our first Prime Minister, Sir John A. Macdonald, the first Prime Minister of Canada, the man who basically created Canada in 1867, was born in Scotland. He was a Scottish national. So he was a dual national. So, we always have had a tradition in this country to say that a Canadian is a Canadian is a Canadian, and we will not discriminate based on where you were born or where you're from or how many passports that you have. And that's one of Canada's strengths. Okay. Immigration Refugee Board has enough resources and
and human resources to process about 18,000 to 20,000 cases. So anything left over from that goes into the next year and the next year. So that's why you have a backlog. So one of the things that we have done for the new backlog that's being created now is to we've appointed a third-party review over the Immigration Refugee Board to help them become more efficient so that they can hear more cases. So in the past, the Immigration Refugee Board could process about 900 to 1,000 cases. They have now made some improvements. They're able to process about 2,000 cases. So they've been able to double their capacity without any new money being invested in that. But I think once they reach a certain point, they will need extra resources as well as shorter hearing times, for example. For countries like Syria, Somalia, Eritrea, Sudan, there's countries that traditionally have had very high acceptance rates. For those countries, the IRB is introducing faster and shorter hearings so that people can just move through the system. If they're accepted, we move to the next case and so on. And it's faster process than going through the same, 3 hearings versus 2 hearings, and just going through the system faster. Yes? I have a quick question. There are severe droughts, as we know, Yeah. especially Somalia, in East Africa, whether it's Ethiopia, Somalia, or Kenya. I want to know, how is the Canadian government responding to these droughts directly? Yes, the Canadian government has put $119.25 million on that. دولة كندا waxay weydiiyay abaarta Soomaaliya iyo dariska wadamada dariska ah dowladda Canada maxay ka qabatay waxay ka qabatay 119 milyan bay waxay u qoondeysay 4 wadan oo ah Yemen, Nigeria, Somalia iyo South Sudan. afartaas wadan waa afarta wadan oo hadda ugu dhibaato badan markii abaarta laga hadlo. 119kaas milyanna waxay afar meel bay u qaybiyeen. Soomaaliya waxaa ku soo aaday adiga 21 milyan waxa u dhigmo. 21kaas milyanna waxay u sii qaybiyeen hay'ado oo la shaqeeyo hay'adaha Soomaalida oo dadka maaragtay maalin walba u adeego. hay'adahaas bay ku kalifeen inay hay'adaha Soomaalida la shaqeeyaan. waxaa ka mid ah hay'adahaas Islamic Relief oo la siiyay 4 milyan. So taas waa mid. arinta labaad dawladda Canada ay sameysay waxa waaye waxay tiri qofkii lacagtaas waa dawladda laakiin qofkii shakhsiyaad ah ama company ama business ama NGO oo wax bixiyo oo Canada joogo dollarku bixiyo dollar baan u raacsiinaa. marka lacag badan baan saas ku soo aruurtay. hay'adaha badan Islamic Relief, Islamic Development Relief Foundation, Care Canada, hay'ado badan baa lacagahaas nasaas oo kale oo ka mid yahay taan inaan aqaano aruuriyay 100 iyo wuxuu aruuriyay $67,000 buu saaxiibiis ka aruuriyay. lacagtaasna wuxuu siiyay Islamic Relief waxay sameynayaan dawladda u tagayaan waxay leeyahay $167,000 aruurinay 167,000 oo kale baa loo raacsiinayaa sidii ballanqaadka ay qaadeen. Yes. Yeah. Yeah, children under state care. Yes. So if you're a child under state care and you're under 18, it was difficult in the past for you to apply for citizenship as of right. You had to seek a waiver from the Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. And sometimes that waiver would take a long time to get. And a lot of children didn't know the process. So to make it easier for that vulnerable group and to facilitate citizenship, which is what C6 was about, we said that from now on, children who need to apply for citizenship without their parents, without the custody of their parents, that is, like if they're in state care, can do so as of right without seeking permission from the minister. Does that make sense? For example, or under a foster parent or whatever, yeah. Right. Just a little louder.
sida loo keenay waxaa jira marka hore loo sharaxo okay midda isma guudiyo ogaal baan guudiyo waxa dhibka keenay madowga ka waa shaqeeyo keenay Soomaaliya ya cadaan madow iyo cadaan dhibka yani dad Kenyan ka shaqeeya dad Kenyan okay kasbadka ma qorshe maayo isma sheegay kuwa gudaha soo dhaaf ka dhan gudaha dadka jooga oo fasalaadka ama nalaabsan marka su'aasha kala ah dadka keeni karo aanti waa garanay midka adiga okay hal keeni kara xasil meelka waa gartay su'aal muhiim buu walaalkeenna weydiiyey wuxuu yiri dadka oo Canada qofka Canadianka ah ama qofka residentiga ah by the way qofka wax sponsor-ayo Canadian qasab inuu ahaado ma hadduu xataa yahay landed dad uu keensan karaa su'aashu uu weydiiyey waxay ku saabsan tahay qofka Canadianka ama landiga yuu keeni karaa waddankan wuxuu keeni karaa wax la yiraahdo family class waxa loo yaqaanaa xaaskaaga caruurtaada iyo waalidkaaga iyo ayeeyda iyo awooga intaas wixii dhaafsan walaalka iyo walaasha waa keeni kartaa haddii aabaha iyo hooyada ay la socdaan ama aabaha iyo hooyada ay masruufaan dawladdii hore waxay samaysay marka caruurta waxay u taqaanay awal caruurta waxaa loo yaqaanay wixii 21 wixii ka yar way soo raaci kareen familka adiga sponsorisa laakiin age-kii bay yareeyeen waxay ka dhigeen 19 marka cuniga 20 mar hadduu gaaro ma la keeni karo anaga si arrintaas aan u fududeyno oo reerkii isku hayno age-kii kor baan u qaadnay waxaan ka dhignay 22 soo caruur badan baa hadda chance heli doono in Canada so taas waxa wanaagsan waa secondly qofkii intaas dhaafsan hadduu school ku jiro hadduu let's say 25 jir yahay ama xataa 30 jir uu school ku jiro uu reerkaasna la joogo ama suruftay still waxa loo aqoonsan yahay inuu yahay cunigaaga ama cunigaaga ama cuniga xaaskaaga oo nin kale u dhashay mo marka isbeddelka aan keennay wuxuu ballaarinayaa fursadda dadka ay u helaan inay xataa dadka waaweyn ay oo loo arko inay yihiin familkaaga laakiin wixii intaas dhaafsan qofka haddii uu 30 dhaafo ka soo qaado uusan school ku jirin sida kaliya uu imaan karo waddanka waxa waaye siyaabo kale inuu ku yimaado for example in uu shaqo helo ama ardaynimo uu ku yimaado shaqooyin badan hadda waxaa jira oo low skill ah iyo medium skill iyo high skill oo Canada ay aad ugu baahan tahay maanta waxaa la shiraayay wafdi oo matalo small iyo medium businesseska oo Canada dhan businessyadaasna waxay boqolkiiba 54 54% of businessyadaas waxay leeyihiin shaqaalaha u baahannahay ma heli karo shaqaalaha ay ka hadlayaanna waxa waaye nooc walba high tech ilaa medium tech iyo xamaaliga dadka baabuurta waaweyn wado dadka warshadaha hilibka kombiyuutarada waxaan ku dhihi lahaa warshadaha so shaqo nooc walba dadkaas way u baahan yihiin wayna isku dayeen dad Canada jooga inay helaan waa waaye dadka Canadianka shaqooyinka qaarkood ma rabaan inay qabtaan so shaqooyinkaas dawladdu waxay u ogoshahay dad inay dibadda ka keensadaan example kan aan isiinayaa gobollada 4 gobol oo eastiga ah maadaama populationkooda uu yar yahay shaqaalahoodana uu ku yar yahay waxaa loo ogolaaday numberka sanad walba la siiyo in loo kordhiyo oo loo ogolaado 3 sano soo socoto sanad walba in loo kordhiyo 2,000 oo application 2,000 oo application waxa waaye halkii application waxa la socdo reerkiisa marka 2,000 waxa ku dhufataa 5 qof ilaa 6 qof ku dhufo waa 15,000 ilaa 18,000 marka intaas qof loo ogolyahay dadkaasna waxay rabaan noqon karaan arday waxay noqon karaan baabuurey waxay noqon karaan qof computer ka shaqeeyo waxay noqon karaan qof warshad ka shaqeeyo gobolka iyo company-ga ku xiran tahay company-ga hadduu qofkaas noo keeno landigiisaan siinayna waa programka ugu horeeyo oo taariikhda Canada oo employer-ka uu qofka keeni karo qofku noo keeno uu yiraahdo qofkaan u baahanahay su'aal ma weydiinayno waxaan siinaynaa landiga marka programkaas waa program aad iyo aad u fiican oo dad badan ay ka faa'iideysan karaan laakiin dadka ma ka warqabaan programka labaad oo gobolada dhan loo qaybiyo waxa waaye program la yiraahdo provincial nominee program oo gobol walba uu designation dadka siiyo uu u ogol yahay dadka low skill ka dhan in lagu keeno ilaa high skill ka xataa marka maadaama gobol walbana allocation la siiyey
gobolkan haddaa abalaagaraysid oo aawaysid gobolka kale ku qaadanaya waxaan aqaanaa hadda naag ka timid Philippines waxay isku dayday British Columbia inay ka xareyso British Columbia maadaama ay tahay gobol qurux badan oo baraf badan lahayn dad badan raba inay tagaan way waysay ayadoo wareersan baa Yukon baa qaatay Yukon baa waxay anaga ku baahan no imo because Yukon dad badan ma tagaan laakiin it doesn't matter waxay helay shar hadda sharciga markay hesho soo laaban kartaa meesha la tagi kartaa ma la dhahaa Yukon waa inaad joogtaa marka fursad weyn waaye dadkii baan ka warqabay programyo badan oo xajiro saas oo kale also awal ardayda Canada wax ka barato way ku adkaan jirtay inay joogaan fursad ay ku joogaan albaaba ay maraan waa yaraayeen hadda maadaama dhalinyaro ay yihiin maadaama luqadii ay ku hadlaan maadaama waxbarasho fiican ay heleen oo Canadian ah dadkaas waxaan rabnaa inay nala joogaan ee waddankan nala dhisaan ay maxaan ku ilaa dhaqaalaheena u kordhiyaan marka hadda programyada aan fulinay waxay fududeynaysaa ardayda oo dibadda ka yimid oo waddan walba ka yimid oo raba inay Canada wax ka bartaan inay joogaan ay sharx helaan for example ardayga Canada yimaado oo wax ka barto college ama university jaamacadda ama college-ka duruusta intay socoto waxaa loo ogol yahay weygii 20 saacadood inuu shaqeeyo ama inay shaqeyso iskuulka markuu xiran yahay sida summerka ama Christmas break-ka winterka waxaa loo ogol yahay full time inay shaqeeyaan markay qalin jabiyaan waxaa loo ogol yahay 3 sano work permit ah inay 3 sano shaqeeyaan 3 sano markay shaqeeyaanna waxay qualification u helayaan inay land helaan ka 3 sano ay waddanka joogaan citizenka markay xareeyaanna 3 sano waa loo xisaabayaa sanad baa looga soo qaadaa 2 sano kaliya sugayaan citizen ay noqonayaan marka waxyaabo badan baa u fududeynay si ay waddanka u joogaan programkii aan ii sheegay Eastern Canada-na kamariga markuu ardaygaas kala qaato ma la weydiinayo qof Canadian shaqadan isku dayday inay siiso waa shuruudda dadka lagu xiro marka ardayda waa fursad weyn oo community-ga ay ka faa'iideysan karto family members daa qabtiin iyo dad u baahan u sheega Canada wax ka barta doolarka waa ka raqiisan yahay doolarka Mareykanka waa ka raqiisan yahay pound-ka Ingiriiska jaamacada fiican ku yaalo research hubs oo fiican baa ku yaalo waxaana lagu ogolahay inaad shaqeyso so why meel kale u tagaysaa mid kale waxaana imaanaysaa waddan oo u furan dadka ajnabiga oo dadka soo dhaweeyo oo qofka diintiisa ma aragtay ixtiraamayo marka waa fursad aad u weyn hadhowdina duruustiisa qofka markuu dhameeyo waddanka uu joogo Montreal or Quebec, سكر rest of Canada سكر local عدين أمك تطلع الأمر. أول واحد جري برنامج هدي أنت صوب بقوله كون أوجشها إني دولة كندا أوليبتي والله جاها يوم مدة 6 سنوات شرعي قال نسينا وكندا أسوء وريجي سعدي إيران كان هذا اللي عكها الوجوس عنا لكن أنت لقاها يستوى الوجوس خيسنا معك. marka program noocaas ah jiray programkii dawladii hore joojisay sababtay u joojisay waxay yiraahdeen dhaqaalaha iyo shaqooyinka loogu talagalay inuu abuuro programkaas ma abuureen marka waa joojinayna gobolka Quebec wali programkaas waa ka jiraa because ayaga waxay u madax banaan yihiin immigrationka waa deal gooniga leeyihiin annaga arintaas arimo kale oo aad iyo aad muhiimsan baa ku mashquulsanaa sidii sharcigan oo dadka عنصرنا كل سمينا شرعي أرنتاسن بابيناي وحن فضيناي معركتي نمبر كي خطتي إن لبضيو سفارة ذي بعد الله يلقينا مركا أرمها سكون مشغول سنة أرنتان أو إنفستمنتي وعمر كهاد لايو ما نقصو جيسن لكن هدي حتى أرنتاس لسوء عليه سؤال شو إحنا قلنا العقد ما قال قديها العقد ما له كرديا مثل ماشي هنا لوهايا مركا سؤالها سنين اللي جتوها هو I was just talking prior about international students. People don't actually realize this. International students bring into Canada $11.54 billion a year. That is more money into our economy than softwood lumber, than financial services, and an equal amount of money to automotive parts. A lot of people don't know that. International students are a great export market for our institutions. They bring productivity up, they bring those perspectives,
and they make great Canadian citizens after the fact. So under Bill C6, we're giving them more credit for the time that they spent in Canada. We are allowing them to work more during the school hours, during the school year. When the school is closed, we allow them to work full-time, and we have a postgraduate work permit which facilitates them working for 3 years in Canada. Under the Express Entry program, we're also giving more points to any applicant who has family in Canada. So that answers my brother's question, the gentleman who was here. He had asked me what happens to brothers and sisters and so on. If you have a brother or a sister or family in Canada and you apply under the Express Entry program, you get additional points and you get to get your permanent residency in 6 months or less. So it's a great program. Again, a lot of people don't know that. They should find out. On that basis, thank you very much. I just wanted today to give an update on the immigration system, some of the progression that we've made, some of the challenges that are coming. I've answered some of your questions. We'll take one last question and then I'll have to go because I have another event to go to. Nikas Mahmoudi. نعم. وسؤال مهم باسبورada la aqoonsan yahay ama dawladaha arrimahaas diblomaatiga iskala shaqeeyo waxa mas'uul ka ah wasiirka arrimaha dibadda waxaan ka warqabaa in arrimaha viisooyinka iyo baasaboorada iyo kulli inay review ku sameeyaan oo ay fiirinayaan sidii waxaas dhan loo bedeli lahaa marka reviewgaas waa socdaa wixii wasaaradda ay la imaataan aan arki doonaa laakiin qaas ahaan haddaan ka hadlo ardayda arday jaamacad ama college Canada ka helay oo baasaboor wato waxaan u fududeynaa xataa haddii ay u kalifto aniga inaan arrintaas farageliyo oo isticmaalo marka taas No, I don't know. Sorry. Okay, very quick because I have to go. Sorry. I think that issue نعم. Okay, no fly listiga laba nooc waay mid waxa waay Mareykan midna Canadianka ah midka Mareykanka wuxuu leeyahay system waa iskaga saari karta waa jira system baa jira ana ku sharaxi karo midka Canadianka in fact labada system kooda nooga fiican markii timaado qofka hadii by mistake loo geliyo suu iskaga saaro system fiican ay sameeyeen oo Chinese qofka uu leeyahay dawladii hore systemkaas waxa ma ka bedelin anaga dawlad ahaan waxaan hadda hawsha ku jirnaa in no fly listigaas la bedelo oo maxaan ku leeyahay dadka ku jirana loo fududeeyo si ay uga bixi lahaayeen qofka la rabo in la geliyana si fudud loogu gelinin qofka mistake identity uu leeyahayna si fudud in looga saaro marka hawshaas waa ku jirnaa aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa hagaag waa mahadsan yihiin tiimkeena dalka Canada oo ay horkacayeen Shukri Gujar Deeqa Nuur iyo sidoo kale cameraman Guuleed Rajo iyo waxa kale oo barnaamijkani soo diyaariyay inuu qabsoomana ka soo shaqeeyay Cabdikariin Aki loo yaqaano waxa kale oo isaguna kamid ahaa Xasan Goodax intaan barnaamij caanka la mid aan ku kulmi doono waa saaxiibkeen Maxamed Daawud Cumar Maxamed Yumbi oo idkaga soo tabeynayay barnaamijkani dalka Holland ee qaaradda Yurub intaan barnaamij caanka la mid aan ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaayo nabadgelyo Horumarka TV